السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك حنا جنالka aqoon wadaag videogan maanta waxaan ku sharxi doonaa computerka iyo dhismihiisa. Computerku waa aalad ku shaqeysa tamar danab taasoo awood u leh inay xogta aqbasho, shaandhayso, keydiso, isla markaana soo bandhigto natiijada ama fuliso hawsha loo diray ayadoo raacaysa hadba tilmaanta la siiyay. Dhismaha computerku waxa uu ka kooban yahay qayb qalab ah oo loo yaqaan hardware iyo qayb barnaamijyo ah oo loo yaqaan software. qaybta hardware-ka waa qalabka computerka aan arki karno aan taaban karno. Qalabyada ugu muhiimsan dhismaha computerka waxaa ka mid ah furayaasha xarfaha oo loo yaqaan keyboard, maskaxda oo central processing unit oo loo soo gaabiyo CPU, xusuushayaha RAM iyo ROM, shaashada oo loo yaqaan monitor, hagaha oo mouse-ka iyo daabacaadda printer. Aaladaha keydinta storage devices. qaybta software-ka ama barnaamijyada waa noocyada kala duwan ee barnaamijyada ka shaqeysiya computerka iyo qalabyada ku xiran sida Windows-ka ama fuliya adeegyo gaar ah sida qoraalada ama xisaabta. qaybta barnaamijyada waxay u kala baxdaa laba nooc. barnaamijyada nidaamka oo loo yaqaan system software waxaana ka mid ah nidaamka howlgalka operating system sida Windows-ka iyo Linux-ka. nooca labaad waa barnaamijyada application softwares waa barnaamijyo qabta shaqooyinka oo si toos ah u xiiseynayo adeegsadaha sida Word-ka, barnaamijyada ciyaaraha iyo Internet Explorer. adeegsiga computer waxaa loo adeegsadaa howlo kala duwan oo ka mid ah nolol maalmeedkeena, waxaana ka mid ah waxyaabaha loo adeegsado waxbarashada, xisaabaadka, howlaha dowladda, caafimaadka, sayniska, ciyaaraha, saxaafadda, warshadaha, socdaalka, bangiyada iyo saadaasha hawada. intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa videogeeni ku saabsanaa computerka waxa uu yahay iyo dhismihiisa iyo waxyaabaha loo adeegsado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.